arooriso bandawadayaal haddii Soomaaliya ku sugan tahay waxa ay ku tahay xilli aroor ah haddii aad joogtid wadamada caalamkana waxa laga yaabaa inay ku tahay xilli kale waqti walbo ay ku tahay wanaagsan ayaan ku leenahay waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee soo kordhay intii aad hurdaysay qodobada xasaasiga ah ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya warsangeli iyo dhulbahanti oo dajiyay shirqool halis ah oo ceergaabo lagu weerarayo firdhiyo iyo ku xigeenkiisa oo xalay la kulmay kulama xasaasi ahna la qaatay saraakiisha ciidanka maamulka waqooyi bari ee ka soo kala jeeda beelaha dhulbahanti iyo warsangeli waxaan kula wadaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay heshiiskii xalay dhacay duulaanka culus ee la qaadayo iyo waxa ka soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii Allah awoodda uu raali ka noqdo waxa qayb ka noqonaya diyaarado dagaal oo galay hawada magaalada Berbera ciidanka militariga Somaliland oo madaafiic ku weeraray diyaaradahaasi iyo cabsi xoogan oo laga qabo in magaalada Berbera ay ka dhacdo duqeymo culus xilli shaki xoogan laga muujinayo in magaalada Berbera ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan sirdoonka Israa'iil waxaan kula wadaagi doonaa xogta macluumaadka wararkii ugu dambeeyay diyaaradahan galay hawada maamulka Somaliland halka laga leeyahay iyo sidoo kale goobta uu ka dhacay weerarka lagu qaaday diyaaradahaasi qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii eebaweyne uu qadaro annaguna aan idinku soo gudbin doono waxa qayb ka noqonaya Axmed Madoobe oo xabsiga dhigay saraakiil qorsheynaysay in ay u soo goostaan dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya xogta saraakiishan oo meel xun gaartay iyo magaalada Kismaayo oo aad loo adkeeyay amnigeeda iyo dhaqdhaqaaqyada culus ee ka soconaya ayaan kula wadaagi doonaa iyo damaca Axmed Madoobe ee ku aadan in uu la wadaago ama la wareego gobolka Gado qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya dawladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo ka dejinaysa koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Sheekh iyo lafta gareen oo dagaalkooda xilligan banaanka u yimid iyo lafta gareen oo soo saaray in saraakiisha ciidanka ay ku xanibnaan doonaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wararkii ugu dambeeyay xiisada ka taagan magaalada Baydhabo iyo sidoo kale wixii dhacay intii aad hurdaysay ayaan ku soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe debogan si aad uga mid noqoto saaxiibada joogtada halkan uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinku soo gudbinayno soo dhawaada daawadayaal qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan si toos ah u guda gelaynaa waxaana ku bilaabayaa wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaga soo cumreeyo bisha barakaysan ee Ramadaan cumrada bisha barakaysan ee Ramadaan waxay u dhigantaa xaj lala xajiyay nabiyullaahi Muhammad nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee waxaana fursadan kaaga faa'iideynaya shirkadda At-Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran inta lagu guda jiro acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin intaa dheer nagala soo xiriir cinwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda beelaha warsangeli iyo dhulbahante ayaa waxa ay dejiyeen qorshe halis ah oo lagu weerarayo magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag Cabdulqaadir Firdhiye iyo ku xigeenkiisa ayaa xalay kulamo xasaasi ah waxa ay ku martigeliyeen oo saraakiisha ciidanka ay la qaateen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo xilligan laga abaabulayo duulaankii ugu cusla oo ka dhan ah maamulka Somaliland magaalada Ceergaabana la doonayo in lagula wareego madaxweyne ku xigeenka maamulka waqooyi bari Abwaan Cabdirashiid Jibriil iyo madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdulqaadir Firdhiye oo Cali ayaa xalay kulamo aan loo kala kicin oo albaabada ay u xirnaayeen waxa ay ku qaateen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kulamadan oo dhaxmaray markii ugu horeysay Cabdulqaadir Firdhiye iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka maamulka waqooyi bari ayaa waxay ahaayeen kulamo albaabada ay u xirnaayeen intii aysan la kulmin saraakiisha ciidanka beelweynta warsangeli iyo kuwa dhulbahante ee labaduba ay kala matalayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka wararkii ugu dambeeyay ee laga helay magaalada Laascaanood ayaa tilmaamaya in Firdhiye iyo sidoo kale Abwaan Cabdirashiid labaduba ay isku dhaarsadeen in la xureeyo magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag maadaama xilligan
maamulka waqooyi bari 2 sano oo ku meel gaar ah uu soo maray sanadkii saddexaad xilligan uu u soconayo sidoo kalena aysan macquul noqon karin in magaalooyin ka mid ah gobolka Sanaag iyo sidoo kale gobolka Sool intaba in ay ku sugnaadaan ciidanka militariga Somaliland oo dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa ka wada halkaasi sidoo kalena dejinaya qidad dagaal oo ay doonayaan in ay ku weeraraan magaalada la yiraahdo Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ragga wada kulmay ee madaxda ka ah maamulka waqooyi bari ayaa kulankoodii markii uu soo idlaaday waxa isku raaceen sida natiijooyinka hordhaca ah ee ka soo baxay kulankaasi ay xaqiijinayaan in warsangeli iyo dhulbahanti ciidamo isku dhafan ay sameeyaan sidoo kalena si weyn loo difaaco deegaanada iyo degmooyinka gobolka Sanaag iyo gobolka Sool maadaama iskaashi xoogan oo dhinaca ciidanka ah uu ka dhaxeeyo beelaha warsangeli iyo sidoo kale beelweynta ee markaasi dhulbahante ee kala dega gobolada Sool iyo sidoo kale gobolka Sanaag macluumaadkii ugu dambeeyay ee aanu helayno ayaa waxa ay tibaaxayaan in intaa wixii ka dambeeyay madaxweynaha maamulka waqooyi bari oo iskugu yeeray dhammaan saraakiisha ciidanka ee ku sugan qaybo badan oo ka mid ah magaalada Laascaanood iyo furmaha dagaalka intaba sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka waqooyi bari ayaa u yeeray saraakiisha ciidanka ee beelweynta warsangeli si ay toos uga qayb qaataan kulanka xasaasiga ah ee ka dhacay ee aqalka madaxtooyada magaalada Laascaanood ee Villa Laascaanood macluumaadkii ugu dambeeyay ee aanu ka helnay halkaasi ayaa tilmaamaya in kulanka la isku weedaarsaday xogo iyo macluumaad la xiriira arinta ku aadan dagaalka la doonayo in lagu qaado magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag oo ciidanka beelweynta warsangeli iyo sidoo kale ciidanka beesha dhulbahante xilligan ay markaasi iska kaashanayaan wararkii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyada culus ee soconaya ayaa la tilmaamay in ay yihiin kuwa markaasi xilligan la doonayo in ay iska kaashadaan ciidamada beelweynta warsangeli iyo sidoo kale ciidanka beelweynta dhulbahante saraakiisha ciidanka warsangeli iyo saraakiisha ciidanka beelweynta dhulbahante oo ku sugnaa madasha kulanka uu ka dhacayay ayaa la duldhigay amro culus oo ku aadan in ay qaadaan bisha barakaysan ee Ramadaan markii ay dhamaato dagaal culus oo ka dhan ah maamulka Somaliland oo iyo dhul ah oo lagu weerarayo magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag sidoo kalena ee markaasi magaaladaasi gacan ku haynteeda ee lagu la wareejinayo maamulka waqooyi bari xubnaha beelweynta warsangeli iyo sidoo kale ciidanka beelweynta dhulbahante labaduba waxa la tilmaamay in xilligan isku dhaf ee markaasi lagu sameyn doono madaxweyne ku-xigeenka maamulka waqooyi bari iyo madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdulqaadir Firdhiye labaduba ay ku heshiiyeen in arintan hal meel looga soo wada jeesto sidoo kalena la diyaariyo duulaankii ugu cuslaa xilliganna la dejiyo qidada dagaalka ee magaalada Ceergaabo la doonayo in lagu xureeyo arintaasi oo si weyn ay u soo dhaweeyeen xubnaha saraakiisha ciidanka ee beelweynta warsangeli iyo sidoo kale beelweynta dhulbahante goobta waxaa la tilmaamay in ciidamada qaarkood lagu dalacsiiyay sidoo kale ciidamada qaarkoodna loo ballan qaaday in ay heli doonaan xuquuqda ka maqan ee dhinaca mushaaraadka ah si ay u howlgalaan ciidanka beesha warsangeli iyo sidoo kale ciidanka beelweynta dhulbahante ayaa dhammaantood loo ballan qaaday in ay noqon doonaan kuwa markaasi qaramaysan marka laga soo tago ciidamada mushaarka joogtada ah ka qaata maamulka waqooyi bari waxaana xilligan wixii ka dambeeyay Cabdulqaadir Firdhiye labadii sano ee ku meel gaarka ahaa laga soo bilaabo ilaa hadda oo markaasi mandate rasmi ah u haysto Cabdulqaadir Firdhiye la tilmaamay in la qaadi doono duulaankii ugu cuslaa abid oo lagu xoreynayo magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag waxaana Cabdulqaadir Firdhiye saraakiisha beelweynta dhulbahante u amray in dhinacooda aysan ka imaanin wax caqabad ah oo markaa dib u dhac iyo jab xoogan u keeni kara maamulka waqooyi bari ee curdunka ah ee xilligan la doonayo in la difaaco halka madaxweyne ku-xigeenka maamulka waqooyi bari Abwaan Cabdirashiid Jibriil ninka lagu magacaabana uu amar ku bixiyay in ciidanka beelweynta warsangeli dhammaantood ay diyaar garoobaan warsangeli waxa ay tabanayaan in aysan ciidankooda mushaar joogto ah iyo sidoo kale qaramayn intaba aysan ka helin maamulka Cabdulqaadir Firdhiye laakiin xalay waxa la tilmaamay in Cabdulqaadir Firdhiye uu qalinka ku duugay in ciidanka ay heli doonaan mushaar joogto ah wixii ka dambeeya bisha barakaysan ee Ramadaanna la bilaabi doono gulufka dagaal ee ka dhanka ah maamulka Somaliland ee xilligan damaacinaya inay gacanta ku dhigaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waqooyi bari waxa ay doonaysaa inay Ceergaabo gacanta ku dhigto Somalilandna waxa ay doonaysaa
doonaysaa in ay gacanta ku qabato magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool arintu waxay u muuqanaysaa xilligan in uu dhalan karo guluf dagaal oo ka dhan ah maamulka waqooyi bari sidoo kale xalay waxa lagu soo markaasi hadal qaaday madashii kulanka saraakiisha ciidanka iyo sidoo kale markaasi madaxda maamulka waqooyi bari ay ku wada sugnaayeen arinta la xiriirta General Mahad Cambaashe waxaana Cabdulqaadir Firdhiye uu amar ku bixiyay in ninkaasi ama warsangeli ay gacanta ku soo dhigaan ama sidoo kale in markaasi ciidanka beelweynta dhulbaanta ay gacanta ku soo dhigaan iyadoo loo ballan qaaday abaalmarin lacageed cid walba oo gacanta ku soo dhigta General Mahad Cambaashe sidoo kalena ka soo dejisa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xaaladda waxay u muuqanaysaa in ay aad u sii adkaanayso seeftan uu gasha kala baxay hogaamiyaha maamulka waqooyi bari Cabdulqaadir Firdhiye iyadoo madaxweyne ku-xigeenka maamulka waqooyi barina la filayo maalmaha soo socda inuu tago meelo badan oo kamid ah gobolka Sanaag isaga iyo ciidamo uu hogaaminayo si loo dhiirigeliyo ciidanka maamulka ee beelweynta warsangeli sidoo kalena markaasi xilligan looga tashto arinta la xiriirta xureynta magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag oo xilligan maamulka waqooyi bari duulaankii ugu cuslaa ay ugu jiraan sidoo kalena la tilmaamay in dagaal cir iyo dhul ah la qaadi doono markay dhamaato bisha barakeysan ee Ramadaan aragtidaada qaybaha hoose commentiga nagula wadaag sidee baad u aragtaa lacagta la dul dhigay madaxweynaha waa lacagta la dul dhigay taliye Mahad Cambaashe iyo sidoo kale beelaha dhulbahanta iyo sidoo kale warsangeli ee ciidamadooda xilligan isku dhafay aragtidaada qaybaha hoose commentiga nagula wadaag waa hagaag wali wararkeena ayaa daawanaysan saaxiibayaal waqti wacan ayaan idin leenahay meel walbo aad joogtaan markana diyaarado dagaal ayaa galay hawada magaalada Berbera iyadoo ciidanka militariga Somaliland madaafiic xalay saqdi dhexe ay ku weerareen diyaaradahan dagaalka ee galay hawada magaalada Berbera kuwaasi oo la tilmaamay in laga leeyahay dalka Turkiga cabsi xoogan ayaa soo food saartay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Berbera iyo aagga magaaladaasi iyadoo cabsi xoogan laga muujinayo in xilligan diyaaradahaasi duqeymo ay markaa ka fuliyaan Berbera iyo deegaanada kale ee markaa la tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin xubno ka tirsan sirdoonka ee markaasi Israa'iil sirdoonka Israa'iil ayaa doonaya in ay saldhig military ka sameystaan magaalada Berbera oo ah magaalo xeebeed aad u qurux badan sidoo kalena xilligan aanan wacnayn in saldhig military laga sameeyo iyadoo arintaasina ay u gogol xareyso in weeraro culus ee markaasi xuutiga ay kala kulmaan Somaliland sidoo kalena lagu weerarayo saldhigga magaalada Berbera iyo deegaanada kale ee markaasi ku xeeran iyadoo xuutiguna ay ballan qaadeen in ay duqeyn doonaan goob walba oo saldhig military Israa'iil ay ka dhisato oo kamid ah ciidda Soomaaliya macluumaadkii ugu dambeeyay ee aanu helayno ayaa tilmaamaya in diyaaradaha ee markaasi aan duuliyaha lahayn ee loogu talagalay in ay wax basaasaan in xalay lagu arkay aagga magaalada Berbera iyo dhulka 50 kilomitir ah ee lagu wareejiyay dawladda Israa'iil oo ay doonayso in ay markaasi ka dhisato dabcan saldhig military oo loogu talagalay in saldhigaasi uu qayb ka noqdo meelaha xilligan ee markaasi Israa'iil ay doonayso in ay markaa gantaalada ka rido sidoo kalena ka weerarto xuutiyiinta dalka Yemen Israa'iil ayaa la tilmaamay in laba qorshoba ay ka leedahay maamulka Somaliland qorshaha koowaad ayaa ah in dadka reer Falastiin la keeno dhulka iyo deegaanada maamulka Somaliland sidoo kalena dhulkooda si qasab ah looga soo raro iyadoo diyaaradaha dagaalka ee markaasi jawiga hoose ku duulayana la tilmaamay in ay maalmihii ugu dambeeyay ku sii badanayeen magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland dawladda federaalka Soomaaliya ayaa amar ku bixisay in weerar lagu qaado cid kasta oo ku soo xadgudubta ciidda iyo cariga Soomaaliyeed iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu tilmaamay in talaabo military ay ka qaadi doonaan maamulka Somaliland haddii ay ka waantoobi waayaan daandaansiga iyo sidoo kale ee arrimaha ku aadan ee aqoonsi beenaadka ay ka heleen maamulka Israa'iil oo iyaguba aan xilligan aqoonsi ka haysan wadamo badan oo ka mid ah caalamka ra'iisul wasaarihii dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa la xaqiijinayaa geeridiisa iyadoo warbaahinta dalka ee Iran ay qorayso in ilaa wali raq iyo ruux lagu laayahay ra'iisul wasaarihii dalka Israa'iil oo ay miciin badayaan Somaliland marka loo eego xaaladda xilligan taagan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada soconaya dadka oo darasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamay tan iyo markii bariga dhex dagaalka ka aloosan oo bilowday in uu mugdi galay aqoonsi beenaadkii Israa'iil ay siisay Somaliland maadaama Israa'iil xilligan ay wajahayso xaaladii ugu adkayd taasi oo u baahan iyada qudheeda in samata bixin loo sameeyo wadamada dhaca bariga Afrikana waa bariga dhaxana xilligan waxay muujinayaan qatartii ugu xooganeed iyadoo Iran ay ballan qaaday in aysan joojin doonin dagaalka iyo duqeymaha tooska ah oo ay ku garaacayso wadamada xulafada
la ah dowladda Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil oo markii hore weerar gardarro ah ku qaaday maamulka markaasi Iran iyadoo ciidanka kacaanka markaasi Iranna ama ilaalada kacaanka Iranna ay tilmaameen in ay dhiman yihiin gantaallo culus oo aan weli horay loo arag iyadoo Mareykankana xilligan markaa arintan uu walaac ugu xooganaa ka muujiyay sidoo kale markabkii Lincoln lagu magacaabayay ayaa gabi ahaanba isna la waayay dhaqdhaqaaqiisa iyadoo la tilmaamay in markabka dhaawacyo uu soo gaaray kadibna uu dib uga gurtay markaasi badda goobtii uu uga sugnaa maadaama xilligan markaasi Iran ay wado dadaaladii ugu xooganaa oo ay ku doonayso in ay kaga hortagto khatar walba oo kaga iman karta dhinaca markaasi dowladda Mareykanka wixii ku soo kordho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan sidee baad u aragtaa diyaaradahan dagaalka ee jawiga hoose ku duulaya markaasi galay hawada maamulka Somaliland iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada culus markaasi soconaya وهجاج مركنا أحمد مدوبي أيها حبس قدجي سراكيل عيدان أو قرشيني إن أي أصو جوستان لنا عدولة فدرال كصومالية يدو حكت سراكيشن يسدو كلا قبيلة أي كسو جيداننا لهلي معلومات كي قدام بي أنه هلي إنه أيها واحد تلماميان إن lix sarkaal oo kamid ah saraakiisha sida gaarka ah u hogaaminayay ciidamada maamulka markaasi Jubbaland Birjeex iyo sidoo kale Abris iyo ciidamada kale markaa ku sugan magaalada Kismaayo in ay qorsheynayeen in ay u soo goostaan dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya saraakiisha doonaya in ay soo goostaan ayaa la tilmaamay in ay ka soo kala jeedaan beelaha Mareexaan iyo sidoo kale ogaadeen waxaana la tilmaamay in Axmed Madoobe markii uu ka war helay raggan goosashadooda in xabsiga la dhigay ilaa iminkana aan wax wara ah laga haynin xaaladooda caafimaad iyo sidoo kale waxa ay ku wajahayaan xabsiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose saraakiishan ayaa la tilmaamay in xalay ay la boodeen ciidamo ka tirsan sirdoonka maamulka Jubbaland iyadoo Axmed Madoobena uu amar ku bixiyay in xabsiga la dhigo saraakiishan dhaqdhaqaaqyada magaalada Kismaayo ayaa aad loo xadiday iyadoo amniga magaalada Kismaayona aad xilligan loo adkeynayo magaalada Muqdisho markii uu yimid hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe waxa ka goosatay ciidankiisa saraakiil qayb ka ah kuwii markaasi Kismaayo kala soo duulay waxaana la tilmaamay in laba sargaal oo kamid ah raggii goostay ilaa iminka ay markaasi si toos ah uga howlgalaan xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana la soo sheegayaa in xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre aan iraahday iyadoo haddana madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe uu ku jiro foojignaantii ugu xooganayd oo uu ku doonayo in uu kaga hortago dhacdooyin walba oo markaasi saameyn ku yeelan kara deegaanada iyo degmooyinka maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sidoo kale heegan galiyay ciidamada maamulka Jubbaland dhammaantood meel walba ay ku sugan yihiin iyadoo gobolka Gado xilligan ay ka aloosan tahay xiisadii ugu cuslayd dowladda federaalka Soomaaliyana ay doonayso marka ay ka dhamaato xiisada ka taagan magaalada Baydhabo in ay markaasi dabcan u gudubto magaalooyin kamid ah gobolka Gado halkaasi oo la doonayo in laga qabto doorashooyinka qof iyo codka ah markaasi Axmed Madoobe la doonayo in marka lagu afgambiyo lama oga xaaladdu sida ay noqon doonto laakiin 15 May waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba gobolada dalka in ay markaa ka dhacaan wacdarooyin culus oo ay soo bandhigi karaan mucaaradka itaalkooda xilligan uu sii taag dareynayo iyo sidoo kale xubnaha maamul goboleedyada ku daaban sida Jubbaland iyo Puntland oo iyaguna markaasi dowladtusyadooda dhinaca militariga ah laga warsugayo halka markaasi koonfur galbeedna xilligan dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qabatay gacan bir ah sidoo kalena loo diidan yahay in ay samayso dhaqdhaqaaq walba oo markaa dabcan ay uga hortagi karto dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Axmed Madoobe ayaa markan u muuqanaya in uu seefta gasha kala baxay iyadoo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoosena xilligan ay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyo military oo amniga lagu adkeynayo iyadoo markaasi cabsi xoogan laga qabo in ay markaa wax walba dhici karaan sidoo kalena ay qaadi karto markaa dowladda federaalka Soomaaliya talaabooyin ka dhan ah hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe wixii ku soo kordho wararkan iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dalo waraale ka noqdo ugu dambeyntiina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo ka dejinaysa koonfur galbeed Soomaaliya dagaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo lafta garan ayaana banaanka yimid iyadoo xiisada dagaalka ee ka taagan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayna ay gaartay meeshii ugu sareysay
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xilligan doonaya in uu koonfur galbeed dhaafiyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen xiisada ka taagan magaalada baydhabo ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraysa iyadoo dhaqdhaqaaqyada culus ee ka soconaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayna ay yihiin kuwo markaasi maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliya ay iskaga soo horjeedaan iyadoo oo aan la ogeyn xilligan dhaqdhaqaaqa culus ee ka soconaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa xilligan ee markaasi dabcan uu u dhimi karo dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada maamulkaasi xogaha iyo macluumaadka la xaqiijiyay waxay tilmaamayaan in cabdicasiis laftagareen uu amar ku bixiyey in ciidanka maamulka koonfur galbeed dhammaantood ay galaan heegankii ugu cuslaa iyada oo la doonayo in lagaga hortago tallaabo walba oo ay qaadi karto dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya laakiin xubnaha mucaaradka ah ee markaasi ku sugan magaalada baydhabo iyo magaalooyinka kale ee maamulka koonfur galbeed ayaa muuqanaya in ay xilligan la soo baxayaan awood xididaysatay oo ku daaban awoodda dowladda federaalka soomaaliya waxaana dowladdu xilligan ay doonaysaa in ay ciidamo culus ka dejiso magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si loo soo afjaro xaaladaha xilligan taagan magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka ee markaasi baay ayaa la tilmaamay in xilligan dowladdu ay qorsheynayso in ciidamadaasi ay ka dejiso ku dhowaad 1,000 askari ayay dowladdu u diraysaa xilligan koonfur galbeed soomaaliya iyadoo markaasi doonaysa in ay tallaabo cad ka qaado maamulka koonfur galbeed ee cabdicasiis laftagareen uu hogaaminayo ee ka dhisan magaalada la yiraahdo baydhabo ee xarunta gobolka baay haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay u suurto gasho in ciidamadan uu ka dejiyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa ay noqonaysaa in koonfur galbeed xilligan godkeedii ay biyo ugu soo galeen cabdicasiis laftagareenna waqtigii lasoo afjari lahaa xilligan ay taagan tahay maadaama dowladda federaalka soomaaliya weeraro qorshaysan ay ka abaabulayso magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wixii ku soo kordho oo warar ah adiga ayaa ugu horeeya cidda daawata haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe dhibuggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga helaya wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno waa maasantiin daawadayaal soo dhowaada waxaan idin leenahay arooryo soban